بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى ciwaanka xisaabtan dhigan doona maanta waxaa weeye quadratic triangle sida halkan uga jeedaan marka quadratic triangle sidan ayay u eg tahay parenthesis o plus p uphoyt 4 marka sidan ayay u eg tahay quadratic triangle marka waxaa loo soo gaabiyey intii la oran lahaa sidan o plus p parenthesis o plus p waxaa la dhahay parenthesis o plus p uphoyt 4 marka sidaas ayaa loo soo gaabiyey tanana waxaa weeyaan sidan o adikame o uphoyt 4 or uphoyt 4 or uphoyt 4 plus 2op plus b uphoyt 4 weeye marka insha Allah taala xisaabta qaacidadeeda marka xisaabta intii la oran lahaa parenthesis o plus p parenthesis o plus p on lahaa markaas qaacidada ay sidaas noqon lahayd o gonger o gonger p gonger o p gonger d le p inta noqon lahayd markaas sidaas loo dhigi lahaa o plus o p plus o p plus p intii la oran lahaa marka ayaa waxaa loo soo gaabiyey sida tan parenthesis o plus p uphoyt 4 marka insha Allah example yar baan qaadanaynaa parenthesis x plus 4 uphoyt 2 adikame x uphoyt 2 plus 2 gånger x plus eller gånger 4 plus 4 uphoyt 2 det betyder x upphöjt 2 plus 8x 2 gånger 4 det blir 8 plus 4 upphöjt till 4 det blir 16 marka insha Allah taala intaas ayay maanta xisaabtan ku eg tahay quadratic triangle waa xisaab lagu dhigto dugsi sare iyo dugsi dhexe insha Allah taala wax adag ma aha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.